السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سلام يا دمان ولا الصوماليات إيه هالكان يقدر ونايا ميل والبو أجوكتان يسوي البودي مغليسان بوادي سو سلام يا وحن مقال كان كجاه الله يا دولة الصومالية يأورك على الشباب ميا لو ده الشيسين يا أو قدر لوه الشيسين يا أيان رواينا فلانقيو وطبق حساسية وأفرع تنكساع على صودا في أي صومالي ده حق وقال كأه سيابك للدول وفلانقينيين حين أرنتا سكتي مع دي كدب markii xasan sheekh maxamuud ay TV-ga Al Jazeera weydiiyeen laba su'aalood oo u muuqda in la weydiinayay inuu rabo iyo in kale in al-shabaab iyo asaga markaasi la wada hadashiyo meelo badan oo kala duwan ayaynu ka fiirinaynaa arintaasi ma suurtagal ma aha yaa go'aanka gaari kara yaasan gaari karinin muxuu noqon karaa dagaalka al-shabaab mustaqbalka soo socda waa maxay faktarada kale ee ku hareeraysan dagaalka al-shabaab ayaan maqalka nooga hadlayaa waxaan ka bilaabaynaa arinta in dawladda iyo al-shabaab la wada heshiisiyo masuuroobi kartaa iyo imise ayuu dagaalka al-shabaab sii socon karaya waxaan islaahay waa meelaha aynu ugu horeeya oo aynu u baahanahay inaynu ka fiirino arintan xasaasiga ah midda hore ee su'aasha hore ee ah suurtagalnimada in al-shabaab iyo dawladda la wada heshiisiin karo waxaan fakriyan aaminsanahay in dawladda Soomaaliya aysan ahayn dawladda ay ka go'aan tahay ama go'aanka gaari karta in al-shabaab la heshiinin inaysan Soomaaliya ka go'inayaan aaminsana waxay ka go'daa dawladaha Soomaaliya ka taageera la dagaalanka argagixisada khaasatan dawladda Mareykanka inay ka go'do ayaan aaminsanahay waxa la yiraahdaa reerka ninka biila ayaa mas'uuliyadda iska leh maadaama dalkeenu yahay dal asagiiba la biilo cidana biisha ayaa go'aanka ugu weyn leh markaynu talaabada noocan oo kala aynu qaadayno waa waaqic jira oo xaqiiqo ah Mareykanku marar hore ayuu la heshiiyay kooxo noocan oo kale taa oo heshiis u la qaatay asagoo fiirinaya dantiisa shakhsiga ah ee aan dawladda kale ee markaa dalkeeda lagu dagaalamay aan fiirinaynin sida daraadeed waa suurtagal in dawladda Mareykanka ay heshiis la qaadato ururka al-shabaab waxaan aaminsanahay inaysan in badan Mareykanku sii wadi karinin inay dhaqaale badan ku bixiyaan ururka al-shabaab iyo inay duqeymo badan ka geystaan Soomaaliya ayadoo la dareemi karayo dhaqaalaha uga baxaya dhaqaale la'aanta Mareykanka soo wajahday iyo adduunka maanta xaaladda uu ku jiro waa suurtagal in Mareykanku uu al-shabaab ula heshiiyay sidii uu ula heshiiyay nimankii ka dagaalamay Afghanistan aad bay suurtagal u tahay xasan sheekh maxamuud oo Al Jazeera ay weydiisay inuu ogol yahay in al-shabaab uu la fariistay in kale jawaabihiisu waxay u muuqdeen kuwa xambaarsan shuruudo aad u fara badan oo xilligaani sida muuqata aysan al-shabaab yeelaynin shuruudaha uu xasan maanta u ka sheegay TV-ga Al Jazeera waxyaalaha kale ee mudan in isha lagu hayo la dagaalanka al-shabaab iyo markii laga hadlayo arrimahan reer galbeedka iyo dawladdeena ilaa iyo 5-6 waxyaalood oo waaweyn baa jira dadkuna ay og yihiin oo aan rabin inaan xasuusiyo kulanka hadda ugu dambeeyay Addis Ababa ka dhacay oo midowga Afrika dawladda Soomaaliya iyo dawladaha taageera Soomaaliya ee dhanka al-shabaab ka taageera ay ku soo bandhigeen lacagtii sanadkii hore laga jaray ATMIS yeerkii sanadii 2022 iyo sanadii 2023 ilaa January waxa la soo bandhigay in marka laga jaray 35 milyan ayaa laga jaray dawladaha Afrikaanka ee Soomaaliya jooga waana sababta ay ayaantan oo dhanba u diidanayeen inay dagaalka al-shabaab galaan 35 milyan 120 milyan baa la siin jiray waxa laga jaray 35 milyan 85 milyan bay qaateen sanadkii hore sanadkan hadda bilaabanaya oo 2024 dhamaanaya oo yeerka ugu dambeeya dalka ay joogayaana waxa qasab noqonaya in lacagtaasi ay hoos soo dhacdo mar walba lacagtaasi hoos u soo dhacdaba dawladaha Afrikaanka ah waxay ku qasbanaanayaan in dalka isaga baxaan waayo meesha mushaar bay u yimaadeen mushaarkii hadii la waay qasab way baxayaan waxa sidoo kale too meesha lagu soo bandhigay in 2,000 oo askari la doonayay inay sanadii la soo dhaafay December ay baxdo balse xasan sheekh maxamuud uu markaas codsaday inay sii joogaan ilaa iyo 6 bilood taasoo ku eg bisha May ee sanadkaani sidoo kale ilaa iyo bisha September waxa loo baahan yahay inay 3,000 oo kala baxaan May waxa bixi doon 2,000 ilaa iyo September waxa bixi doon 3,000 sanadkan hadda marka inuu ku jirno Soomaaliya dagaalka adag oo al-shabaab kula jiro ilaa iyo 5,000 askari askar ah oo ciidamada Afrikaanka ayaa Soomaaliya ka bixi doona sidoo kale dawladda Mareykanka maalmihii la soo dhaafay waxa la sheegayaa inay yareysay ama ay joojisay gabi ahaanba duqeymadii cirka ahaa oo al-shabaabka ay ku garaacisay
saddex ilaa iyo afar weerar oo kuwii hadda ugu dambeeyay ahaa oo xero ciidamo dawladeed la galay isla markaasna runtii dhibaato badan loo geystay ciidamada dawladda hub badanna laga qaatay midna dawladda Mareykanka halka ma aysan imaanin wax duqeyna kama aysan geysanin waxaad moodaa marka in dawladda Mareykanka ay back off subirayso oo ay dib uga baxayso waxa suurtagal ah dawladda Qatar inay ayadu tahay cidda wada hadashaynaysa ama ka shaqeynaysa inay Mareykanka iyo Al-Shabaab maybe ay wada hadlaan waxa suurtagal ah qorsho uu dhankaas jiro ee uu dhanka Soomaaliya jirinin Mareykanku hal mar door isku leeshiyo ayuu iska raacaya wax shaqo ku leeyahay Soomaaliya uma sheegayo cid kale uma sheegayo awal la meesha danihiisa u joogay iyo cabsi asaga uu ka qaba Al-Shabaab inay weeraraan safaaradaha ku hareeraysan dalkeena sida midda Nairobi ku taala iyo midda ku taala Addis Ababa iyo xeerada ay Djibouti ku leeyihiin waa sababaha ugu badan oo uu noo caawinayo asaga cabsi ka qaba qodobka saddexaad oo ayaduna factor weyn waxa weeye afartii bilood la soo dhaafay Al-Shabaab waxay heleen hub aysan weligood horay u helin bay heleen waxay furteen oo ay gacan mariyeen xaqiiqada jirtan ay tahay ciidanka dawladda isla markaasna hub aad u fara badan bay heleen waxaan ka baqayaa inay arrintaasi momentum cusub ee Al-Shabaab geliso ama ay geliso awood cusub oo ay deegaamo badan ku qabsan karayaan kuna si adkaadaan halkii laga filayay inay soo dagaan qodobka afraad oo ayadana muhiim ah waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbaday oo dawladaha Djibouti Ethiopia iyo Kenya ka dalbaday ciidamo cusub oo aan ATMIS ka diiwaan gashanayn inay dalka yimaadaan 8 asbuuc ee soo socota si markaas loola riixo la dagaalanka ururka Al-Shabaab arrintaas ayaa muujinaysa marka in awoodda ciidanku ay hoos u dhac ku timaaday kadib markii ciidamada saraakiishooda iyo maxaa la yiraahdaa dagaaladii ugu dambeeyay ay guuldarro runtii kala kulmeen ciidanka qaranka sabab walba ha keento conclusion-kayga iyo isku soo aroorintayda ku saabsan topican ayaa wuxuu noqonayaa waxaan aaminsanahay oo aragtida yarta ay tusaysaa yarkan aynu ku jirno in 2023 haddii dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamiga ah aysan ka adkaan ururka Al-Shabaab oo aan dalka laga sifaynin sanadkaani waxa xaqiiqo noqon doonta in mustaqbalka dhow Al-Shabaab ay dalka la wareegi doonaan oo ayagu marka ay guuleysan doonaan maaha arrintaani arrin u laabanaysa jacayl iyo nacayb waa arrin u laabanaysa fact and figures bay u laabanaysaa iyo waaqica jira markii aad si dhab u fiiriso maaha wax walbaba inaynu ka fiirno dhanka aynu jecelnahay wanaaga marka qaarkood xataa haday kharaar tahay waa in la sheego oo farta lagu muujiyo saddex arrimood baan islaahay marka way keenaysaa ama sabab bay u noqon kartaa inay Al-Shabaab dalka la wareegaan sida Afghanistan loola wareegay oo kaleeto saddex arrimood ba keeni karaya haddii ay dhacdo ilaahay baan ka rajeenayaa inaysan waxa dhicin midda koobaad waa dhaqaalihii ay reer galbeedku ku bixin jireen ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo meesha ka bixi doona wixii sanadkan ka dambeeya 2024 markii la gaaro mandate-kooda nimanka u dhacaya dhaqaalan looma hayo mar walba oo dhaqaaladu soo yaraado dalka way ka baxayaan hatta ciidankeena mushaaradkiisa in la helo way adkaanaysa way ayaga mushaaradkooda bixiya marka la dagaalanka argagixisada nimankaanu mandate-koodu intiisa ugu badan sanadkan ka hartay wixii sanadkan ka dambeeya dhaqaale in loo helin ba suurtagal marka midda ugu horeysa waa dhaqaalo lagu la dagaalamo ayaa la weynayaa midda labaadna waa beegsiga saraakiisha ma garanayo cidda ka dambaysa iyo sababta loo beegsanayo dagaal walba oo dhaca Al-Shabaab la galo waxa lagu waayaa saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada dalka kii hadda ugu dambeeyay Akismaayo ka dhacay sargaalkii ugu sareeyay oo ciidanka meeshaasi ba lagu dilay mar walba oo saraakiisha la dilaana waa guul darro iyo ciidanku inuu niyad jabo maaha arrin wanaagsan in saraakiisha la laaya cabsi baan ka qabaa mana garanayo cidda keentay isaabtaasi laakiin saraakiishii dalka joogtay way dhamaadeen wax ka haray weeyrihiin oo qodobka labaad qodobka saddexaadna waa musuqmaasuqu waa dilaaga ugu weyn ee dawladnimada Xasan Sheekh dawladdiisa waxa hareeyay musuqmaasuq hebel baa loo xiray iyo hebel baa loo xiray iyo hebel baa iskale wax walba waxay noqdeen musuqmaasuq inta ugu badan musuqmaasuqu waa wax dhibaato ku ah wax walba la sameeyo casharadii aynu ka baranay Afghanistan casharka ugu weyn wuxuu ahaa dawlad maamulkeedu musuqmaasuq ku salaysan yahay kama adkaan karto kooxaha argagixisada markaysa sida daraadeed Xasan musuqmaasuqa uu dhax dabaalanayo dawladnimada dhibaato badan bay u keenaysaa hubka laga iibsanaya ciidanka mushaar weynaya waxyaalo badan bay keenaysaa mar walba oo musuq yimaado wax walba oo progress way istaagayaan saddexdaas arrimood musuqmaasuqa dhaqaalaha beesha caalamka ee bixinaysa oo meesha ka baxaya iyo saraakiisha iyo ciidankii oo si baaba'ayaba aad mudab in lagu shubayo saddexdaas factor waxaan oran karayaa
وصدح فاكتور وهدي أي نقطة على الشاب يعني دولة أيوة كعد كعدان كيني كريسة وقت يعني أنت بدأتكم مركي فيريان صور كحسن الشيخ محمود وجهي سكان مقالية عبسيبا كم مقطع dadku waxyaalo badan bay sawirnayaan anigu waxaan aaminsanahay cabsida ugu weyn ee Xasan Sheekh Maxamuud wajigiisa laga akhrisanayo psychologically waa cabsida uu ka qabo in ururka al-shabaab ay la wareegaan Soomaaliya mar walba madaxweynuhu wuxuu ka soo muuqanayaa meel asagoo arkaysa inuu madluun yahay wajigiisa waxa ka muuqda cabsida haysa murugada haysa waxa ay dhan wada arkaysan sida daraadeed meeshaas dhibaato ka jirta waxaan rajeynayaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed in Ilaahay badbaadiyo لكن حالة اللي وجهها معها حالة ونكسن أنت سامسو كوبيا أنت بس سؤال عبرنا عندك ترى سأنا بدينه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.